بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب ريال سو دوادا halka naga daawanaysaan waa barteeda YouTube ee Yusuf Xibro official saaxiibada barnaamijka ku xidhan nin odayaan idin wadaa fadlan hadii markii ugu horeysay oo channelkan daawato subscribe saaro notification-kana furo gambaleelka share gare muuqaalka si asxaabadana u gaadho video-gana like gare soo dhawow ugaas Yusuf Xibro ma santahay oo ku dhawahay adiga asxaabtada ku xidhan kanaalkaaga waxaan leeyahay sida la idin sheegay like-ta caawa idinka idin la joognaa like iyo share iyo inaad subscribe saartaan okay waa mahadsantahay ninkan odaga waa mulkiilaha dayax films bal marka hore magacaaga dadka waxay ku yaqaaneen dayax magacaagii iyo magacii channelka waxay noqdeen isku mid waxa la isku leeyahay ha marka magacaaga istaxan dadka bar magacayga Cabdiraxmaan Cilmi Xirsi la yiraahdaa magacayga caadiga saxda waa Cabdiraxmaan dayaxna YouTube-ka la yiraahdaa waa magaca dayax iska leeyahay aniga Cabdiraxmaan baan iska leeyahay aad iyo runtii Cabdiraxmaan Cilmi Xirsi aad baan ugu faraxsanahay inaad caawa channelkayga markii ugu horeysay aad ka soo muuqato saaxiibadana waxaan jeclahay inay soo dhaweeyaan waa mulkiilihii dayax films barnaamijka qisay qeyro iyo khaamtiisi kala ninka odaga ay noo daadin jiray way Cabdiraxmaan Muqdisho ku sugan tahay magaalada Hargeysa baynu muddo dheer soo wada joognay xamarna wanaagaas ka daban midnay dad badan oo runtii igu xiran ama faniskayga kamida waxa laga yaabaa caawa markii labadeena isku arkaan inay markiiba niyadooda ku soo dhacdo labadan waa social media isu keenay laakiin waqti dheer baan saaxiib soo haynay iyadoo social media oo qirqir ku jiro xaalad adag Muqdisho intii aad joogtay maxaa kugu yaabana Muqdisho intii joogay waxyaalo fara badan baa la yaab igu ahaa koow ay ka mid tahay lahjada aad iyo aad mooto haddaad imika raacdo bajaaj oo kale imika dadkeenu ay u garanayaan bajaaj oo kale dad raacdi oo hadhow tolo uu dameesha doonaysa ku geeyo markuu lacag konayo lacagta dir anaga dir baan intaas laakiin isaga wuxuu konayaa laba dhagax tuur laba dhagax tuur waa $2 tuur haye يعني لو دور در لو دغح تور marka ku cusubtay meeshii loo dhagax banaan ka doontaan qoys meeshii marka hore aad ka yar filisay xoga tagniin jirto laba dhagax tuur wax soo soo waday waran aliyaad yalla dilay waxa kale marka sida aan madaarka ka soo baxay meel hotel bakhaayad oo kale hotel soo marnay عندنا cunta ka soo cunmada wada diyaarin soo saarnay safar soo qofo idahaasina cunta iska cunay xilli oo galabna ku soo beegnay iska caashadana taagna meel cunta ka cunadeedna marka hore meel ka tabato meel kala tagto iska digba ku jirso bacda ku jirso moogta dadna qofku markuu ku yimaanay ninka qofka waiterka wuxuu guuriyay waxaan ku leeyahay wuxuu cabitaan waxa baanta cabitaanna qolada reer waqooyiga waxay u yaqaanaan qofka ka shuba aad iyo aad khaamti kale dadna anigoo cabitaan la yaaban baa anigu sharaab banano isagu marka sharaab ku jeed wuxuu ii raaciyay xibur isbarmuto marka kulma ka baxay yaallo isbarmuto igu soo rasiibo aad iyo aad isbarmuto waa fahmaysa wax yani waxaan sayno ma xala shigay mugti wax yara laga fiicno waxaan siri cabitaan iyo isbarmuto waxaan siri qolanaagi fiican buu sheegay xasir mara meel qoladii kala soo gasho wuxuu wadaga bal ka shubo cabadi sir aad markaas ku saaxiib arig sharab macbaba yaa ku ninka sharab macbaba markaas waxaan ku waran sharab macbaba shaab macbaba maalmo dhama maqsuul aan sharab macbaba shaab macbaba aad iyo aad waan ka carray isbarmutada waxa kale oo la yaab kugu noqonaya oo aan la yaabay oo barnaamijka aan diyaarnay ku jirta Muqdisho marka hore soo waxaad ka aaminsanaanaysaa marka dina la soo ordayo meel diig daadanayo qof la siiso dhaawac xabad laga horkiirayo waxaad filaysaa qofka ka hor yimaada in adigu ku dilayo adiga lagu dilayo qori lagu qabanayo dhulka jiifsa beerka dhig waxaas laakiin haddana waxa uu meel caadi nolol caadi u noolahay ayaan imi oo jooga dadna waxaan isweydiinay muqdishadii la sheegay iyo muqdishada ninka ilaa imka waxay la tahay muqdishada laga sheegay muqdisho kale meel kale ku taala aad iyo aad tan dhex jooga ay ahayd taasna la yaab ay igu noqotay
waxa kaloo la yaab ku noqday isla barnaamij anagoo diyaarinay barnaamijka markaan soo wada oo muqdisho ku saabsan baa waxaa arkay xamar weli meesha ugu samxadda badan leh oo haddana calankii somalilan laa ilaaha illa maxamed rasuul xataa laa ilaaha maxamed rasuul ku qoran tahay aad iyo calamadii kale calankii turkiga iyo calankii soomaaliya iyo calamo fara badan uu ku dhex jiro oo halkaa uu yaallo oo calankii ka babanayo cid ku mashquulasiyo dadka waa iibsanayaanoo ma garanaysaa weliba tada kale calamada kale lacagta la siinaya uu kasii qaalisan yani waxaan waxaad moodaa in lasii sharfayo qiimaha calamada kale iyo qiimaha calanka somalilan wuu kala duwan yahay way kala duwan yihiin waayo tusaale iminka innaga maraba marada ka qaalisanta qofka jecel aad iyo aad oo taasaa si fiican dad tusaalahaan dad calan kala iibsanayso iyo calamka somalilan dad iibsanayso ka somalilan baa qaalisan xagga lacagta waan gartay hadda waxay la noqotay yani qofku dhinac kale uu ka xunaya calankayga la qaali garanaya laakiin dhinaca maaho maadaama wixii quality fiican ku yaalo qiimo sare ku yaalo yani qiimihiisa way kor u qaaday u fiican yahay weeye marka aad waxaa jirta waxyaalo fara badan baa lahjada day noqoto haddii dadkii bulshada noqoto waxyaalo fara badan baa ayaad arkaysaayo iyo wax laaga sheekeynayo oo dadna fake been noqonayo markii been abuur noqonayo baad la yaabaysaa waa wada la yaab cabdiraxmaan oo magaalada hargeysa baad waqti badan ka soo shaqaynaysay waqtiyada qaarkoodna waa soo wada shaqaynay waxaad isleedahay ku kala duwan yihiin muqdisho iyo hargeysa muqdisho iyo hargeysa horta dadku waa isla halkii marka laga mid dhinaca politicalka aad iyo oo politicalka waxay ku kala duwan yihiin tusaale shacabka hargeysa waxaad moodaa iyaga inay xisbiyada ku jiraan oo wada siyaasiyiin yihiin maadaama dadku isdoortaan shacabkana waxaad moodaa in iyaga siyaasadda dhan ay necab yihiin oo kale siyaasadda waxay ku kala duwan yihiin iyaga qolada hargeysa ka timid xaggan intay yimaadaan dabarka laga furay yani magaalada galbeed qof kasto yani free way qof kugu mashquul ma jirto hore u soco adoo xalkiisa qolada raaca hata kuma horeeyo xagga hore si horti carray arkaysaa inta qofka ka yimaada oo tusaale halkan yimaada tusaale dad adiga oo hargeysa soo dhasho ka soo shaqeeyo wali wasaaradda warfaafinta u shaqeeyo waxay baroon karada tirada laabo dalinta ku qosho hadii qof halkan kamid ah oo hargeysa iska tago oo soo laabto talaabiid tago soo laabto lagu mashquulayo oo qofka lama xirayo inaga qofka xaga ka yimaada oo xagga yimaada iyadoo magaalada Soomaaliyeed taasina magaalada Soomaaliyeed jigjiga magaalada Soomaaliyeed wax badan ayna kala duwaneen qofkaas wuxuu qoray qof tinta ka baxay qof tusaale cad soo raacay qof iyaga xaaraanka ah markaas lagu muxarimay markaas ay lagu miisay markaas jeedada la dabagelay markaas lagu ornay cadawad soo raacay markaas qof kasto xagaas dhiigkarka ku kicinaysa markaas oo dhanay yani maxaa sababsamaysa wax kale ma sameeyo kaliya shumatay marka dhinaca bulshada waxa si kala duwan dhinaca hadaad eegto nolosha oo kale waxaad moodaa inay dadku wax badan waaseen yani hotel marka noqoto cunto markay noqoto cuntooyinka wax yar kala duwan yihiin laakiin dad ahaan afkii waa isku af oo lahjadii wax yar kala duwan yihiin oo xala qaar badan fahmayeen sida dhaqanka laakiin dhaqankii iyo diintii iyo sida bulshadu u nooshahay iyo labiska xidhan yihiin iyo waxoodu waa isla systemkii u nool yihiin oo dhan waa isla halkii waxyaala qaar yaroo dhinaca political marka noqoto waxyaalahaas ku sii kala duwan yihiin laakiin sida kale oo dhan waxaad moodaa inay isku mid ka yihiin waxay ku sii kala duwan yihiin kamid ah oo muqdisho hargeysana aadka u kala duwan kamid ah dhinaca fanka oo kale dad moodaa in aad ku kala duwan yihiin oo hargeysa fanka dhinaca fanka ay ku horeyso dhinaca wartabinta kale marka laga hadlayo waxaad moodaa in muqdisho xagga dhinaca saxaafadda dhinaca warbaahinta marka waxyaalo fara badan bay dhinacan horumarka kuwaasina horumarka sameeyo cabdiraxmaan nimka muqdisho aad joogtaa muddaad hadda joogtay ma qorshaysantahay inaad muqdisho sii joogayso intee lag baad aaminsantahay inaad joogayso muqdisho aad is leedahay inaad joogi kartaa muqdisho niyo horta aniga waxay ii qorshaysan inaan meelo fara badan tago oo muqdisho ka baxsan oo Soomaaliya ka baxsan waxaan doonayaa inaan meel kasta Soomaaliyeedna aan tago aan aado laakiin hadda maadaama muqdisho aan nolosheedii arkay oo aan fahmay oo hadda aan sawir ka bixin karay inuu muqdishada la sheegayo waxay qorshaysan aniga nolosheeda inaan halkan deganaado laakiin meelaha doontaad u safri kartid safri karo meel kasta Soomaaliya meesha doontaa noqoto iyo meel kasta adduunka mid aan doonayo inaan tago wax ka soo qabsado dan aan soo laabto laakiin muqdisho aan salka dhigo ugu dambeyn cabdiraxmaan aad baad u mahadsantahay waa kaaga mahadcelinaya waqtigaaga su'aashu dambe saar baan ku weydiiyo ma jiraan wax caqabad oo ka hor yimid intaad muqdisho joogtay
niyo caqabad hadday noqoto dhinac kasta oo wax kasta qofku markuu isagu meesha imanaya laga yaabaa inuu waxyaalo fara badan sawiro bilataan lagu sameeyo laakiin hadday noqoto dhinacii shaqada hadday noqoto dhinacii asxaabta hadday noqoto dhinacii nolosha caadiga intaba waxaad moodaa tabarkan laga furo waa lagu leeyahay orod markii taxsan ka soo tarkiiba ka horeeyo hore u socod aad baad u mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad baan kaaga mahad celinayaa saaxiibada igu xidhan ninka odaga Cabdiraxmaan Cilmi Xirsi waxaa halkan magaciisa aan idinku baray Mr. Dayax Films dadku yaqaanaan waa mulkiilaha Dayax runtii barnaamijyada qiimo badan buu ka sii daayaa channelkiisa waxaan rajaynayaa barnaamijyadaasina inay runtii dardar fiican hadda kadib uu sii gelin doono haddii Allah uu raalli ka noqdo aniga iyo Cabdiraxmaan labadeedu isku duuban waxaan leenahay salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh